kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Barka 252 fadlan hadaa ku cusub tahay channelka subscribe saaro like share iyo commentiga yaa naga hilmaamin mahadsanidin mowduucina maanta waxaan uga hadli doonaa wararka xanta suuq kaliibsiga kooxda kubadda cagta Barcelona maanta waxada wargeyska AS ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in Barcelona ay sare u qaaday xiisaha u qabto laacibka kooxda Inter Milan Lautaro Martinez oo 22 sano jir ah. Kooxda Napoli ayaa waxay xaqiijisay in Barcelona xiiseynayso laacibka kooxdaas Fabio Ruiz oo lagu qiimeeyo 180 milyan sida uu qoray wargeyska Mundo Deportivo. Wakiilo ka socdo kooxda Inter Milan ayaa isbuucii la soo dhaafay la kulmay madaxda ka tirsan kooxda asagoo kala hadlay suurtagalnimada Rakitic inuu u dhaqaaqo Taniganiga. Kooxda Barcelona ayaa ku adkeynaysa in aysan wax ka yar 35 milyan ku fasixi doonin xidigan reer Croatia ee Rakitic. Macalinka xulka Holland Koeman ayaa hogaaminaya macallimiinta u taagan inay bedelaan Iniesta Valverde dhamaadka xilli ciyaareedkan hadduusan ugu yaraan qaadin 3 ley. Aragtidiina waa soo dhawi doonaa asxaabta YouTube-keena Barka 252 ku xiran qodobada idin soo akhriyay hal iyo laba aragtidiina ka soo dhiibta waa arki doonaa insha Allah sidaas oo dhahdaan channelka Barka 252 fadlan rukuma channelka hadaa ku cusub tahay intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.